نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم ولا رأسهم عليد ملت جوكتان بإله سبحانه وتعالى ذكوان ما يلو عدي لبندبك الله كقاضو عدي دن لأله وفي انت بهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت لمتى الله نحرستو والدينتي أن الله نحرستا أننا الله نوقدب نحرستو دلك دينتا ددك إيا دولة نمدبا إلهي سبحانه وتعالى هينو بدبادي marka ugu horeysa waxaan taasi u dirayaa mugiyo miisaan leh dhammaan dhalinyaradii ku shahiiday dagaalkii ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah ee ku soo duushay khawaarijta ku soo duushay Puntland si gaar ah waxaan u xusayaa wiilasha saddexda ah oo isku family-ga aan adeerka u ahay ilmo qoryood adeer qoryoodna waxaan leeyahay waxaad iga guddoontaa taasi kaliya laaba dhammaan odayaasha iyo maamooyinka hooyooyinka awlaadoodii ama dhalinyaradoodii ay halkaa ku baxeen xaasaska caruuraha aabbayaashood meeshaa ku baxeen dhammaan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala intii idinka geeriyootay shahaadadooda ha u aqbalo idinkana xanuunkiina jannatulfirdows ilaclaa idinku bedelo intaa kadib waxaan baaq guud u dirayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan culimada masaajidda maanta waa jimce khudbadda ha lagu soo qaato dhibaatadan weyn ee Soomaaliya ka jirta gaar ahaan Puntland hal la ogaado marka koowaad inay Puntland dagaalka ay ku jirta ay ku matalayso ummadda Soomaaliyeed oo dhan argagixisada caalamiga konton qof oo hal meel lagu wada dilay baa waxa laga dhex waayay hal qof oo Soomaaliya yani waa layna ku soo duulay mukhaabaraad caalamiga in la diraya dawladaha dacminaya oo dabada ka wada dhaqaale iyo xoolaba la daba socda iyo hub mawjeeda waxaan u baahannahay inaan iskaashano dalkeenu waa dal muhaddad u ah cid kasta adduunka oo dhan baa kusoo duulay oo weerar ina ku ah marka dagaalkaasi waa dagaal layna ku soo qaaday haddaan Soomaali nahay waa inaan u midownaa meel kasta oo aan joogno dal iyo dibadba waxaa layna ka doonayaa inaan u midowno qodobka koowaad waxaa la rabaa oo lambar 2 ah reer Puntland markii musiibo meel ka dhacdo way gurman jireen iyagana in loo gurmado meel walba ay joogaan in loo gurmado in lagu garab istaago dagaalka xalaawayaasha ay wadaan oo cadawga ee ka soo duulay adduunka waxaa la rabaa inaynu u midowno saan u dhannahay ummadda Soomaaliyeed dagaalkaas aynu isaga kaashan lahayn waa dagaal duulaan dal wadankeena duulaan ku ah oo Soomaalinimada duulaan ku ah sidaa inaynu u aragnaa la rabaa waxaan ugu baaqiyaa hormuudka ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba ama siyaasi ha ahaado ama oday dhaqameed ha ahaado ama sheekh iyo caalim ha ahaado ama hormuud si kale ha ahaadee qof kasta oo dad hoggaan u ah oo Soomaaliyeed inay hawsha qayb ka qaataan baan ugu baaqiyaa waxaan rabaa in halkan idinka sheego dawladdu dagaalka ay ku jirto istiraatiijiyadiisa runtii xanuun badan baa jira oo dhaawac badan baa jira oo dhimasho badan baa jirta laakiin guulo isdaba joog ah bay dawladdu ka gaaraysaa argagixisada meelo aad u badanna way ka qabsatay number aad u badanna way ka laysay dagaal markii la galana dhimasho iyo dhiigbaxba waa lagu talagelayaa dhaawac baa lagu talagelayaa dhaqaala lagu talagelayaa burbura waxaa lagu talagelayaa xanuun tiro badan in la wajaho laakiin waxaa loo baahan yahay in la iska kaashado meesha hadda uu dagaalku ka socdo waxaa la oran karaa tog jacayl lahaa oo dheeraa toggaa in badan oo kamid a in laga saaray oo laga qabsaday daaramadow iyo damalle iyo makarasa qurac iyo meelahaas oo in laga saaray laakiin mushkilada meesha taallaa waxay tahay nimanku waa niman baadiyaha weligood ku jiray muddana ku tababaranayay shaab shuutaray haystaan waxay haystaan daroono adigoo yacni meel fog joogay ku toogan karaan dhashiika intay buur saaraan bay sidii waxay ugu tooganayaan baa la yidhi shaab shuutarkii waxay ugu tooganayaan madaxda iyo saraakiisha marka waxaa la doonayaa istiraatiijiyadaas in laga wada tashado dad badan oo khibrad u leh dagaalada oo weliba dagaalada buuraha yaqaan in la helo xilliyada ciidamadu soconayaan waa inaysan noqon xilli iftiina habeenkii ha la socdo habeenkii ha loogu dhaco meesha loogu gelayo laakiin maalintii ha laga gabado oo ha laga dhunto oo magaranaysaa istiraatiijiyadda ha lagu noqdo ciidamadii waa joogaan raggii aqoonta u lahaa waa joogaan saraakiisha waxaan ku talinayaa xataa haddii la go'doomin karo ciidan meel ku jira lagu go'doomin karo
oo loo isticmaali karo daroonadii cirka iyo dawladihii lahaa dalkaanu caawinayna oo ka caawinayna aerial supportka in loo adeegsado oo ciidamada dhalinyarada aan aad maaragtay marka hore loo gelin kelmadda markaan ka gudbo reer Puntland waxaan leeyahay meel aad joogtaanba waa inay sabaabushaan dhaqaale loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dawa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay rasaas baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay moral support in dadka loo muujiyo ma garanaysaa in la garab taagan yahay marka waa inay muuqataa baadiyaha dadka degan miyiga waa inay gurmadaan oo xoolahooda bixiyaan baabuur xoolaa waa in laga raraa miyiga oo ciidamada hilib loo qalaa oo si joogto ah ay cunto u helaan oo at least aysan dhinacaas dhibaato aysan kaga imaan xagga sahayda iyo xagga saadka in aad looga taakuleeyo oo laga taageero waxaa iigu xiga xasan sheekh maxamuud iyo dawladdiisa xasanow wax badan oo qarannimadii ahaa baad burburisay stageka caalamiga ahaa ceeb baa noo taal iyo fadeexad wax macnaa kuma lihin qabkii iyo qarannimadii lala ku qadarin jiray dhulkaad la gashay ciidamadii waa burburisay waxaad burburisay hantidii dawladda qaran ee dhexe ay lahayd oo aad kulligeed xaraashtay qabuurihii baad u dhacday hadda waxaad maraysaa dadkii qaxootiga aaday oo rafaaday oo dhibka maray oo meelihii ugu adkaa gelistooda ugu adkayd sida Mareykanka inaad tiraahdo xoogaa lacaga baa lagu siinayaa soo qaada xagee geynaysaa xagga dagaal baad ka wadaayo aad kicisay oo bahreere laba reerood oo laba ciidan oo dad isku reer ah Mareexaan baa isku leynaya bahreere oo adiguna aad qolo wadatid qolana ka soo horjeedo hadeer waxaad ka samaysay raas kaamboni waad ogay shidada aawadid oo ah burburka ummadda Soomaaliyeed yaysan sababin xasanow qaybtii ugu dambeysay weeye in lagu kala tago dalka markaa u diidid askari dhaawac oo dibadda loo qaadi lahaa baasaboorkii xaqa u lahaa u diidid markaad mashaariicdii ka xanibtid reer Puntland markaa u diidid oo aad ka hor istaagtid ma garanaysaa diyaaradihii dhaawaca qaadi lahaa iyo taageeradii iyo taakulayntii ay ka heli lahayn arrimo dibadaha dawladihii hubka siin lahaa markaad tiraahdo ha siinina annaga qoladeeda qarannimada aaminsan ku dooda mar walba Puntlandna tooshka ku daaro ku adkeeya aan ku hadlaynaa berri hadday yiraahdaan waa ka go'aynaa ama waa ka tashanaynaa ama danaha iyagaanu raacanaynaa maxaa u siyaasadeynaysaa arrimaha bulshada maxaa baasaboor siyaasadeynaysaa askari dhaawaca oo la qaadayo xagee bay ka soo geli kartaa dani inay is haysaan macnaheedu ma waxay kula tahay adiga dadka reer Puntland ka soo jeedo dhan inay is haysaan dal iyo dadba kulli waa necabtahay waa is haysaan masaasa aqli xumada noocaasa aniga hay eedo bay dawladnimadii eeday xasan wuxuu leeyahay aragti leeyahay aniga hay eedo oo ah anaa kaliya shaqeynaya micro management dhaqan xun weey xasanow anku xasuusiyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ka aqoon iyo aqli iyo cilmi badnaa ka garasho dheera ilaahayna cirka ka hagayay baa wuxuu intuu dhex fariisto saxaabadiisa wuxuu lahaa ashiiru calaya warii bidaansha ilaahay baa amar wuxuu ku siinayaa washaawirhum fil amri wartalada wax ka sii adigu maxaad garan kartaa oo dawlad ku maamuli kartaa maxaad garan kartaa ninku ma garanaysaa shakhsiga ahi wuxuu ninku yahay markuu isaguna ninku toos yahay ninna ku tirsan yahay aragtida ashiiru calaya talada yani waxaan arkay ra'iisul wasaarihi oo raba inuu taageero bixiyo wuxuu hadlayaa sidii shacaba oo banaanka taagan haddii hadda aad adiguna ku raacday oo Puntland hala taageero hadda yaa leediin hala taageeriyo waa la taageeraya af ma rabno ficil baa rabnaa waxaan rabnaa inaan aragno diyaarad Muqdisho laga soo diray oo dawladdu soo dirtay oo Boosaaso ka degtay oo dhaawacii gurayso isbitaalada u kala wasacaysa Muqdisho haddii ay u baahan yihiin dibadda in loo raro dibadda u qaadaysa waxaan rabnaa inaan aragno diyaarada daawo sida rasaas sida hub sida oo ka baxay xamar oo Boosaaso ka degaya waxaan rabnaa inaan aragno dawladda oo mucaawino iyo dhaqaale ciidan sahay iyo saad ciidan diyaarada ku rayso xagga geynaysa waxaan rabnaa iyadoo taagan oo caalamka la hadlayso leh caalamka beesha caalamka waxaan ka baryaynaa ka codsanaynaa inay caawiso reer Puntland waxaan rabnaa inaan aragno dawladda oo intay istaagto hadlaysa
oo shacabka la hadlaysa oo dhahaysa arrinta Puntland ka jirta waa arrin Soomaaliyeed qof kastoo Soomaaliyana waxaan ka rabnaa inuu taageero oo garab istaago waxaan rabnaa dawladnimaan rabnaa inay ka muuqato adiga iyo maamulkaaga dawladnimaha ka muuqato ra'iisul wasaarahan miskiinka oo aan shaqada bahayn inuu magaraysa sidii nin shacab oo hadlo waa sabab aad ugu leedahay yani waxaa la rabaa sidaan si ka duwan dawladnimada inay noqoto shacabka Soomaaliyeed meel ay joogtaan waxa idinku baaqaya dadka walaalihiina garab istaaga Puntland markii dib dhaco way garab istaagi jireen ummadda iyagana markoodii way haloo hiiliyo oo dhaqaalaha la ururiyo oo hal isu tago haloo kaco ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa inuu jabiyo cadowga waa laga guuleysto waa laga gacan sareeyaa in inta loogala sii dhawaado ayaan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa ta'aala oo laga guuleysto lagana sifeeyo gabi ahaanba Puntland kadibna ciidamadaas khibradda ku soo qaatay burburinta iyo baabiinta iyo sifaynta argagixisada waxaan rajaynayaa inay meelaha kale oo argagixisadu ku hartay ee Soomaaliya ay tagi doonaan shaqana ka qaban doonaan khibradoodana looga faa'iideysan doono Soomaaliyana ay u midoobi doonto cadawga ajnabiga ah ee ku soo duulay waxaan kaloo rabaa inaan kalmad raaciyo maantaan aragnay Soomaha ajnabiga iska dhex wareegaya wadanka oo aan fiisaha iyo sharciga midna ku soo galay kuwa lugaynayo ka imaanaya Itoobiya musiibo inay yihiin maanta waa la wada arkay Soomaha hal loo midoobo meel kasto Soomaaliya kamid ah dadka ajaanibta oo aan dalka ku soo galin fiisaha xadidan ama fiisoodii dhacay ama raba inay iska joogaan ama ka shaqaysan iyagoo warqad shaqo haysan